maalmihii ugu dambeeyay magaaladan Boorame xarunta gobolka Nowdal waxaa ka socday kulamo lagu wacyigelinayo dadka isla markaana loogu hadlayo qiimaha uu talaalku leeyahay. Kulamadan lagu wacyigelinayo bulshada ee loogu hadlayo faa'iidada uu talaalku leeyahay ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Abiib Aadan Nuur oo ah madaxa talaalka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, wuxuuna ugu sheekeeyay bahda caafimaadka iyo bulshadii kale ee kulamadan ka soo qayb galay qiimaha uu talaalku leeyahay. ma u baahanahay shaqadan CHD-ga maalmaha caafimaadka carruurta mise uma baahan anagu dadka waxaan isku laynaa nimankan lacagta le maalin kasta isku laynaa dadka iyagu way u baahan yihiin dadkiina uma baahna iyay ku leeyihin seena ugu baahnayn seerfey baa soo qaadno inta lacag intaa leg 3 milyan aa nagaga baxday lacagtii waxaa ka faa'iiday 3 milyan 8 qof 10 qof 20 qof ay ku odhanayaan marka lacagta ilaa intaa leeg ku bixinayo ma service-ka SHD-ga yani maxaa dadka ugu guray inaan baahnayno. Saciid Bile Buraale oo ah madaxa WHO ee goboladan Awdal iyo Salal isla markaana ku hadlayay afka hay'adaha ka howlgala caafimaadka ee goboladan, iyo Maxamed Cumar Yaabe oo ah agaasimaha caafimaadka asaasiga ee goboladan Awdal iyo Salal oo iyaguna kulankan intii uu socday hadallo ka jeediyay ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen qiimaha uu talaalku leeyahay, iyagoo bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan waalidiinta ugu baaqay inay carruurta ka talaalaan si ay ugu badbaadaan xanuunada kala duwan. Dr. Cabdiraxmaan Xirsi oo ah sargaal ka socday wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkan oo iyaguna kulamadan kula hadlay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo bahda caafimaadka ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa waxyaabaha ay ku andacoodaan kuwa matalinta badan doonayna dacaadaya talaalka waxaa ka mid ah waxaa kooranayaa talaalku wuxuu ka imanaya ama uu lalmadays ka dhigaya carruurta ubadkeena oo waliba si ay kuugu fogeeyaan oo aad u fahmin waxay koranayaan da'dan imika jirta maaha kuwa imika ay dhalay doonaan kuwa sii dhalay doonaan baan hadda waxba dhalaynin yani waa imsi generation taas yani ka imika jira ku dhalay doono ku sii dhalay doonaan dhalmada laga waayaabay koranayaan marka dacaayadaha badan ee ay dadkaasi danta yar wataay ay fuliyaan in ad waxba kaba jiraan ka soo qaadaan waa shay laga maarmaan runtii talaalku inaguma cusba oo awalba gobolkan Awdal gobolada ugu roon oo ay ku yar yihiin waxaan diidmada la yiraahdo ama refuserska ama daro magacii la doonaha loo sameeyay ay ku yaraayeen baa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nowdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ee gabagabadii kulamadan ka qayb galay ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay bulshada inay ka faa'iideystaan talaalkan bilaashka ah isla markaana ay la shaqeeyaan howlwadeenada talaalkan wada si ay hawshoodu ugu gutaan si wanaagsan. Cabdi Fataax Axmed, Hadh Wanaag News, magaalada Boorama.